maanta waa maalin Jimco ah dooxada Diniqo dhir qurux badan jawi fiican meesha waxaan isugu nimidnay geeli daayeerkii iyo jineer barxad oo runtii raggii socodka bilaabay aad buu mahadsan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala nabiyina maxamed wa ala alihi wasallam wasallam maanta waa maalin Jimco ah waxaan ku jirnaa bishii November ilaahay maadii waxaanu socdaal ku nimidnay dooxada Diniqo oo ka xigta magaalada Boorama waqooyi galbeed marka runtii waxay ahayd socdaal aad u qurux badan jawi fiican dhir qurux badan udgoon iyo raaxo meesha waxaan isugu nimidnay geeli daayeerkii iyo waxa weeyaan maasha Allah makhluuq ilaahay baa meesha marka naftu waxay dareemaysaa inay raaxo ku jirto alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay nabada iyo nabadgelyada ina siiyay iyo caafimaadka ina siiyay ayaa mahadsan waxa inta dheeraada runtii midho fiican oo deymada la yiraahdo oo maanta ay aad uga soo dhareeray baa iyadoo moogtay ku cusbaa socodka maanta guud ahaan socdaalku waa caafimaad badan baa laga helaa fadhiguna waa cudur marka waxaan ku boorinayaa dhammaanteen asxaabteena iyo dhalinyarada in aan loo boogaanin jimicsiga socodka guclaha iyo orodka taasi waxaa runtii wax weyn u taraysaa caafimaadka jidhkaaga caafimaadka maskaxda iyo maankaaga iyo guud ahaanba nafsad ahaantaada inaad nafis dareento oo si raaxo leh aad u seexato jidhkaaguna uu noqdo mid adag oo maxaan ku dhahaa miisaaman marka runtii aad iyo aad baan ugu boorinayaa annagana ilaahay noo siyaadiyo kusoo dhawaada dhammaantiin jineer barxad oo runtii raggii socodka bilaabay aad buu mahadsan yahay inuu maqalne iyo Dr. Cabdirashiid maanta waxa ku cusub carab oo runtii maxaan ku dhahaa isaga laftiisuna adkaysi badan u yeeshay oo kusoo dhaweynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh